daawada asaad la socoteen basaaka maxkamadda gobolka Awdal ayaa waxay si rasmi ah u ansixisay 13 mudane loo doortay golaha deegaanka magaalada Boorama doorashadii 13 bishii May aynu ka soo gudubnay loo dareeray hadaba barbarkayga midig waxa fadhiya Professor Maxamed Diriya Cabdi oo kamid ah mudanayaasha saaka sida rasmiga loo ansixiyay inay ku soo bixin liiska ugu dambeeyay komishanka doorashooyinka qaranka loo gudbiyay Professor saaka ugu dambeyn waa la ansixiyay waxaad kamid tahay mudanayaasha golaha deegaanka waxa tahay mudanaha ugu daadaweyn bal waran seed aragtaa ansixintii saaka ugu dambeynta la ansixiyay talabooyinkii la qaadayay ee la xiriiray doorashadii la galay iyo xubnihii ku guuleystay iyo barnaamijkii sida uu soconayay ilaa iyo inta la gaarayo in la doorto maayarka magaalada Boorama laga gaarayo jaranjarada la marayay ayuunbay uun ka mid ahayd ansixinta saakuna maxkamaddu ansixisay 13 xildhibaan waa positive waa arin togan oo si loogu talagalay u soconaya jaranjaradiisina si qurux badan loo mariyay istabisna ama talaabooyin dheeriyana ay wali hadda yihiin ilaa xad waxa weeye waa arin qurux badan oo si loogu talagalay sharci ahaanna waafaqsan ayaan u arkaa marka laga yimaado in ugu dambeyntii si rasmi ah loo xaqiijiyay natiijadii komishanka doorashooyinka loo gudbiyay maxkamadda gobolkuna ay yiday dawad ogay tartan baa jiray isriix badan baa jiray kursiga maayarnimada weey hadda halka loo ordayo saan la socono horay waxaad u shaacisay inaad u taagan tahay inaad qaadi karto mas'uuliyadda xilka degmada magaalada Boorama isla markaana isku soo taagi doonto inaad magaalada Boorama maayar ka noqoto kuna loolami doonto wali loolankii aad ku jirtay inaad kursiga maayarka magaalada Boorama aad ku fadhiisato wali ma halkiisiba mise waxba iska bedelay Professor Maxamed Diriya Cabdi waxba iska bedelin waa halkiisii waa sidii harayba aan ugu yeeli inaan u taaganahay musharaxa maayarnimada wax iska bedelay totally ma jirto sidii hadalkii horeba u daaraa inta meesha isugu timid ee soo baxday 13 waxaan aaminsanahay ninka ugu daadaweyn inaan ahay aqoon durugsanna aan leeyahay waayo aragnimo aad u dheerna aan huwanahay iyadana oo wax ka tari doonta gudagalka haddii la ii doorto xilka iyo inaan jidka ku habboon mariyo isagoo hadalkiisa si wato Professor Maxamed Diriya Cabdi waxa uu meesha ka saaray warar propaganda oo suuqa la soo galiyay oo sheegayay in Professor Maxamed Diriya Cabdi uu ka taraasulay kursiga loolanka loogu jiray kursiga maayarnimo ee magaalada Boorama waxaan sameeyay ka maqla marka qaarkood dhawaaqyo meel ay ka yimaadeen aanan garanayn oo oranaya ninkii isaga ahaa Maxamed Diriya Cabdi oo sharaxnaa maayarka magaaladu uu iska casilay meel ay ka timid arrinka maran garan maayo go'aanku anigu ayuu iga xiran yahay waxay ahayd haddii dibnahayga la maqlo inay cid tiraahdo waxba ka tanaasulay tiraahdo ma tanaasulin mana tanaasulayo sidaan ma taqaanaa aan isku soo bandhigay markii horeba aan isku shaaciyay ayuu xaliga taagay ugu dambeyntii desriix iyo xafaltan way baa jira rajaynta leeg baad ka qabtaa in 16 bisha oo hadda maalin kaliya ay naga xigto golaha deegaankuna waa fariisanaya waa dooranaya maayarka iyo maayarka xigeenka 5 sano soo socota hogaamin doona degmadan rajaynta leeg baad ka qabtaa inaad halkaasi aad ka guul ka gaadho dhaqdhaqaaqa aan sameeyay markaan eego dareenka dadku iga qabaan markaan eego inta aan la kulmay golaha u soo baxay deegaanka iyo waxyaabaha aan isleeyay iyo dareenka ay muujiyeen markaan eego inta lagu kabo iyadana sida bulshadu ay aragto waxaan aaminsanahay rajadaydu inay tahay mid aad iyo aad u sareysa daawadalkaasna waxa uu ahaa Professor Maxamed Diriya Cabdi oo kamid ah mudanayaasha golaha deegaanka magaalada Boorama loo doortay 13 bishii May aynu ka soo gudubnay isla markaana saaka maxkamadda gobolka Awdal ay si rasmi ah u ansixisay xubinimadiisa golaha deegaanka intana ku kulmayna wareysiga xiga waa aniga Imraan Xuseen Aadan la weydin leh sidaas iyo nabadgelyo